nin iyo gabar sinaystay oo meel fagaara ah lagu karbaashay kadib markii maxkamad ay xukuntay. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareysa si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Calaadan mahadsanid badan. nin iyo gabar ku nool dalka Indonesia gaar ahaan gobolka Aceh ee ismaamulka Islaamka Indonesia ayaa wax ay ku dhaceen farad sina ah oo ay markaasi si ulaka ah u sameeyeen taasi oo ay ku sheegeen in nafi shaydaan ay ka ahaatay. ninka iyo gabadha oo tuhun ah in ay falkaasi galeen sidoo kalena uu baaritaan ku socday ayaa waxaa ninkan oo lagu magacaabo Mukhlis Maxamed oo 46 sano jir ah Indonesiana u dhashay iyo gabadhan ay wada sinaysteen waxa ay ka hor qirteen maxkamadda in falkaasi ay ku dhaceen oo ay nafi shaydaan ka ahaatay kadib markii baaritaan lagu sameeyay sidoo kalena la soo eedeeyay dhanka kalena ay sidaasi ku wada qirteen ninkan iyo gabadhan in ay falkaasi ku kaceen. waxayna sidoo kale maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto balse maxkamadda Islaamiga ah ee Aceh ayaa go'aan ku gaartay in la karbaasho labadooda waliba goob fagaara ah oo dadka la isku soo bixiyo si ay markhaati uga ahaadaan dadka falkaasi ku kacay goobta lagu karbaashayo oo xukunka maxkamadda lagu fulinayo. markii la gaaray fulinta xukunka ayaa waxaa goobta fagaaraha ahayd la keenay ninkan iyo gabadha sinaystay ee maxkamaddu ay ku xukuntay in lagu karbaasho goobta fagaaraha ah. gabadha ayaana la hormariyay oo dadka hortooda goobta fagaaraha ahayd lagula dhuftay ilaa 23 karbaash oo ay maxkamaddu ku xukuntay maadaama ay sidoo kale in loo naxariisto ka codsatay halka sidoo kale ninka oo isna goobta la keenay lagu dhuftay 28 karbaash ah oo ah intii ay maxkamaddu ku xukuntay. ninka ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in uu qayb ka ahaa culimada gobolka balse falkan nafta iyo shaydaanka ka ahaaday uu galay intii uusan maamulka culimada qayb ka noqon oo sanado ka hor sida uu sheegay uu galay uuna qirtay in falkaasi uu ku kacay kadib markii ay gabadhan kulmeen sidoo kalena ay guri ku wada kulmeen isagoo sheegay in naf iyo shaydaan ay ka ahaatay balse si ku talagal ah uusan falkaasi u samaynin. gobolka Aceh ee dalka Indonesia ku yaala ayaa waxa uu ka duwan yahay gobolada kale ee dalkaasi iyadoo xukunka diinta Islaamka ama shareecada Islaamka gobolkaasi looga dhaqmo oo ay ka duwan yihiin gobolada iyo guud ahaanba dalka iyadoo dadka markaa falka noocaas ama sinaysta kuwa khamaarka dheela iyo waliba dadka xatooyada sameeya markaasi lagu faliyo waxa ay shareecada Islaamku ka qabto kadib markii ay ka fadhiisato maxkamadda sare ee gobolkaasi Aceh ee Islaamiga ah.